dhanka kale tan hotelka Alwan ee gudaha magaalada Tani Gaarisa maanta waxaa ka qabsoomay shir ay ka soo qayb galeen cuqaasha aqoon-yahaniinta siyaasiyiinta iyo waxgaradka beesha reer Qaasim ee degta magaalada Tani Gaarisa shirkaasi waxaa qayb ka ahaa xildhibaankii hore ee degmada Faafi mudane Ilyas Barashil iyo xildhibaanka haatan kursiga ku fadhiya mudane Cabdikariim Cusmaan Rati kuwaasi oo si guud uga wada hadlay midnimada qoyska reer Qaasim iyo jiritaankiisa iyagoo xilligan ka duulahaya siyaasadda deegaanka iyo guud ahaan ismaamulka sidii horumarin loo sameyn lahaa waxaa hadalka ku hormaray xildhibaanka degmada Faafi mudane Cabdikariim Cusmaan Rati kaasi oo markaasi si qoto dheer uga sheekeeyay wada jirka beeshaasi degmada Faafi ilaa iyo deegaanka Saaqa sida uu yiri midnimadanadii walaalnimadanadii inaan sacafino gacmo is qabsano ma aragtay duq hada ani adeerkii waa kala maqneen Saalax Barre maanta uu fadhiyo arkaysiin asalskii ma cafinay waa is salaanay kaliis maaha wax alla wixii dhaxalan ku jirnay maanta waan bixinay waxaan ka hadalnay wuxuu ahaa dhaqankii qoyska waxaan ka hadalnay wuxuu ahaa midnimadanada intaasna isku raacnay muwaafaqanahay wax dhibo wadana malaha maantana meeshaas adanahay qoyska waxaan isku raacnay inaan mid noqono oo hal wada amarno dilaameedin dhanka kaleeto mudanaha horaan looga soo dooran jiray degmada Faafi waa xildhibaankii hore ee degmada Faafi mudane Ilyas Barashil ayaa asaguna beesha ka sheekeeyay sida ay u doonan hayso dakhliga ay ku leedahay ismaamulkani Gaarisa xildhibaan Ilyas Barashil oo laga soo dooran jiray degmada Faafi halkan waxa ka muuqda odayaasha qaayaha leh oo ma artay beesha cawda gaar ahaan beesha reer Qaasim waxaana iga dambeeya xildhibaankii Faafi Cabdikariim Cusmaan Rati oo isagana beeshan ka dhashay fadhigeena maanta wuxuu ku saleysanaa midnimo iyo ma artay inaan hadalla oo siyaasad iyo dhaqanba aan isweydaarisano waxaan ku heshiinay inaan mid noqono aanan isku cafino ilaahay daraadiis waxaa la jooga hadda intii doorashada ay dhacday 3 sano 2 sano soo hartay waad ogsoontihiin Kenyada oo dhan xilli ma artay siyaasi oo kala guurna way soo dhowdahay waxaan ka tashanaynay 3 sano maxaa noo qabsoomay countiga Gaarisa maxaan ka faa'iidnay haddaan nahay cidaas reer Qaasim oo beesha cawda oo talmuga ah waa aad iyo aad markaan muddo falanqaynay waxaan ku heshiinay in aan ma artay guddi bixino oo ma arka prasabka Gaaris iyo countiga Gaaris inaan xuquuqdayna ma artay u sii raadsano oo si hadhowto markii doorashada la gaaro aan ay iska qabsi ay jirin oo ma artay adiga maxaad ii qabat anna maxaan ku qaban doonaa marka aan ka wada hadalno beeshan beel aad iyo aad u hadal badan ma aha laakiin waa beel baaxad leh oo aad u tiro badan oo halkan kelime ah illa ma goboleedka Ethiopia goday illa ma qallaafo degto oona aad iyo aad loo garanayo marka afdabolan waa dahab waxaan ku soo gabagabeynayaa talada weyn iyadoo maanta bilaabtay way dambaysaa laakiin waxaana si kastaba ay ka fursan waynaysa waa inaan xuquuqdayna helnaa doorka aan ku lahayn muxuu ahaa countiga Gaaris xisaabtayna iyo wixii aan u qalmno maana heline